daawadayaal mar kale iyo barnaamijyadeennii aan ugu talagalnay kor u qaadista aqoonta dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu muuqaalada sameeya waanan ugu talagalnay dhalinyarada inta badan aan helin iskuulo ay ku bartaan xirfadda muuqaal sameynta. Toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa barashada ama waa maxay A-roll B-roll. haddaba waxaan ku hormari doonaa mid ayaynu u qeexi doonaa kadibna waxa aynu eegi doonaa sida labaduba ay isula shaqeeyaan. Ano wax badan idku tusi doonaa editingka oo aad arki doontaan sida labadan shay ee A-roll iyo B-roll ay isula shaqeynayaan. haddaba aynu ku hormarno A-roll. A-rollku wuxuu noqon karaa your main interview. wuxuu noqon karaa wareysigaaga sheekada meesha ay ku jirto ama cidda sheekada sheegaysa. waxaana loo qaybin karaa laba qaybood. wuxuu noqon karaa muuqaal, wuxuuna noqon karaa cod ama audio. A-roll waxaa soo geli kara interviewada inta badan maalinlaha ah ee la sameeyo haddii qof laga qaadayo ama shay marka iyada si laga hadlayo. wuxuu noqon karaa qofka reporterka ah ama wararka soo gudbinaya dhacdooyinka dhacaya marka uu kaamarada ka soo muuqdo waxaa la oran karaa A-roll. sidoo kale A-roll wuxuu noqon karaa wada sheekaysi adig iyo qof markaasi aad iswareysanaysaan, laakiin waa hal qof ama hal shay ama hal cod oo ka hadlaya sheekadaada. B-roll waa qaybaha ugu muhiimsan tan iyo markii loo soo wareegay casriga tiknoolajiyadda cusub ee muuqaal sameynta. waxaa laga maarmi waayey si muuqaal walba xiiso uu yeesho in la helo muuqaalo ka hadlaya waxa sheekadaadu ay ku saabsan tahay. muuqaaladaasi inta badan waxa ay ka turjumayaan oo qofka daawanayana ay u gudbin karaan in sheekadan ay noqoto sheeko xiiso badan oo loo arko inay tahay dhacdooyin dhab ah. haddii qofku wariyaha uu soo tabinayo arrin dhacday markaas iyada ah waa inay ku kaban yihiin ama ay ku ladhan yihiin muuqaalada ka hadlaya dhacdadaasi si ay u eg tahay. haddii aad ka hadlayso ama aad wareysanayso qofkanina uu ka hadlayo mowduuc wareysiga la xiriira interviewgaaga ama wareysigaaga, waxaa muhiim iyaduna ah in ay la socdaan muuqaalada qofkani waxa uu ka hadlayo ama sheekadani waxa ay ku saabsan tahay, xogta ay xambaarsan tahay in muuqaal ahaan daawadaha aad ugu gudbiso. marka B-roll waa qaybaha kale ee la xiriira sheekadaada oo iyagu qurux u yeelaya wareysigaaga kadibna ka dhigaya wareysi dhammaystiran oo qofka daawaduhu uu ku mashquulo ama u dhammaystirto. maadaama uu oganahayba inta badan haddii laga shaqeyso youtube-yada iyo weliba facebook-yada waxaa muhiim ku ah maadaama aad doonayso xayeysiiskaaga suuqaaga inaad lacag badan ka samayso in muuqaalkaaga uu noqdo mid la wada daawado oo xiiso badan. maadaama hadda waqtigu yar yahay oo dadka inta badan macnaheedu inta wax daawanaysaana qof walbana uu kaa cilmi badan yahay adiga oo uu daawanayo sheeko xiiso badan oo isaga soo jeedata, waxaad ku qasban tahay in aad xoogga saarto B-roll-yadaada aad ku beyntigaraynayso ama aad ku laxamaynayso muuqaalkaaga interviewga ah. haddaba waa maxay faa'iidooyinka B-roll ay leedahay? B-rollku faa'iidooyinka ay leedahay waa dhowr shay. inta badan waxa ay ka hadashaa ama ay sheegtaa sheekadaadu inay noqoto sheeko qurux badan. haddii aad cod raacinayso oo audio raacinayso muuqaalo aada u qurxoon dadku way daawanayaan. haddii wareysigaaga ay la socdaan B-rollyo fiican oo ah muuqaalo aad ku farshaxmaynaysana dadku way daawanayaan. marka waxay qurxisaa sheekadaada. sidoo kalena waxa aad kaga faa'iidaysan kartaa haddii intii wareysigu uu socday qaladaad ay dhaceen oo laga yaabo qofku inuu aad wareysanaysay ama uu qufaco ama si kale qalad uu kaaga dhacay, hadhow jaritaanka editingka labada qaybood aad isu geynayso waxaad saaranaysaa B-rollkaaga. cid fahmaysana ma leh sheekadaaduna sidii ayay usii soconaysaa. haddaba haddii aad tahay muuqaal sameeye waxaa adiga aada muhiim kuuga ah marka B-rollka aad samaynayso inaad qodobadan soo socda aad raacdo si adigoo degan aad u hesho dhammaan muuqaalada aad u baahan tahay ee aad ka iibinayso bulshada adig ku daawanaysa. number 1 waxaa aada muhiim u ah intaanad bixin ka hor oo aanad soo duuban qaybaha kale ee muuqaaladaada B-rollska, waxaa muhiima inaad ballaangarayso oo aad qorshayso oo aad qorto dhammaan waxa aad u baahan tahay ee B-rollya aad doonayso in aad soo qabsato. taa waxaa kaa fududayn karaa inaad booqato goobta laftigeeda aad ka duubayso B-rollka si aad u hesho fikir guud oo ah markii aad imaanayso ee aad wax duubayso
in hadba shay walba meesha aad ugu tegi lahayd iyo qaabkii aad u qaban lahayd intaba inaad fahamsan tahay. marka had iyo jeer waa inaad plan waa inaad qorshayso intaanad bixin ka hor. shayga kale aadka muhiimka u ah waxay tahay biiroolyada markii aan samaynayno inta badan waxaa aad muhiim inoogu ah in muuqaalada aad samaynaysa ay yihiin muuqaalo fadhiya. markaan ka hadlayno aan kuleeyahay muuqaalo fadhiya runtii maaha muuqaalo wax walba ay fadhiyaan, laakiin waa muuqaalo kaamaradaada aad u isticmaalayso terboardka ama lugaha lagu xiro kaamarada si dhaqdhaqaaqa muuqaalkaasi aad duubayso dadku aysan ugu wareerin in aad fadhiisiiso kaamaradaada. stabilizer baad ku fadhiisin kartaa, waxaad u isticmaali kartaa gimbal baad isticmaali kartaa, slider baad isticmaali kartaa, terboard baad isticmaali kartaa, laakiin fadlan muuqaalka b-rollka aad soo qabanayso ha noqdo muuqaal aad u fadhiya kaamaraduna ay fadhido. haddaba ugu dambeyn markii muuqaalada aad duubayso waxaa aad loogu sii kala xariifsan yahay helista angalada ama dhinacyada qofka uu ka qabanayo b-rollyada. runtii waxaan kaaga digayaa inaanad hal dhinac waxba ka qaban oo aanad ka qaban wall shortkii ama medium shot ama close up oo hal dhinac inaad qaban, laakiin qofka xariifka ah waa qofka warwareega ku warwareega hadba shayga uu duubayo isagoo angalo kala duwan ama dhinacyo kala duwanna muuqaalkaasi ka qabanaya. waxaan kusoo gabagabeynaynaa runtii inaad kala fahanteen intii muuqaalka yar u socday oo ah A-rollka iyo B-roll. A-rollka aan ku qeexnay interviewgaaga ama main interviewgaaga oo noqon kara muuqaal ama cod noqon kara, weliba sii noqon kara qof waraysi aad ka qaadayso, weliba macnihii hadaad news akhrinayso, haddii aad report soo gudbinayso inaad hesho A-rollka. A-rollka marka iyada ah waa sheekadaada qofka sheegaya ama sheekadaada cidda sheegaysa marka iyada ah baynu oran karnaa A-roll oo aan laga maarmi karin B-roll oo iyadana aan ku qeexnay muuqaalada kala duwan ee la xiriira sheekada marka iyada ah A-rollka ah ama muuqaalada aad duubtay ee A-rollka ah inaad ku beenti karayso ama aad ku qurxiso. runtii practice garee wax badan isku day, dulqaad badan ayay u baahan tahay. marka qof walba muuqaal sameeya waxa aan just kula talinayaa in uu isagoo degan waqti geliyo wax walba uu duubayo oo aanan ku degdegin in aad muuqaal maalin kaliya ama daqiiqada kaliya macnaha aad soo gudbiso. inta aynu ku kulmano barnaamijyadeenan xiisaha badan leh waxaan isku dayi doonaa hadba intii aqoonteenu ay gaarsiisan tahay inaan idiin soo gudbino. waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.